الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وعينو وحكا oran doonaa zakaatul fitr sakada loo yaqaano zakaatul fidriga ilaa 17 arrimood oo ahkaamteeda ayaynu ku soo koob insha Allah magaceeda zakaatul fidrina waa la yiraahdaa zakaatul badanna waa la yiraahdaa sakadii jirka zakaatul ru'us sakadii madax zakaatul riqaab iyo sakadii qoorta macnaheedu sakada waxa weeyaan qaybna waxa laga bixiyaa xoolaha qaybna dadka waa tii dadka laga bixinaya tani si kolka loo eegana ramadaan oo waajib ahayd oo ilaahayna waafajiyay ayaynu sadaqana bixinaynaa salaadna tukanaynaa mahadnaqa oo ciid ah sakada iyada culimada qaar waxay ku yar ishaaraan aayadaas ku fasiraan qad aflaha man tazakka waxa liibaanay qofka sakaat fidrigi bixiyay wadakara isma rabbi magaca ilaahi sana xusay oo Allahu akbar ti ciid akhriyay fa salla tukaday salaadii ciidana qodobka horeeya waxa weey taariifkeedu waxa weey sadaqa la bixiyo ama raashin la bixiyo marka ramadaan laga afuro raasinkaas oo waajiba waxana la waajibiyay sanadii labaad hijrada sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu sanad joogay kii labaad baa la waajibiyay arinta labaad waxa weeye sakadan xukunkeeda ma sunna wa faralba horaynu soo sheegnay inay waajibato la waajibiyayba Abdullah ibn Umar wuxuu leeyahay anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam farada zakat al-fitr min Ramadan wuxuu waajib umada kaga dhigay sakada laga afuro Ramadan saacan min tamrin aw saacan min shaciirin laba kiiliye bad هذا أما لبا كيلية برتمرة على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قف كستا حرة يقف كستا أطانا يقف كستا لبا يكون الدقة وقف كينو مسلم هاي قف كستا مسلم أبا هدوها ليوا واجب حكمة اللوتشي دايي وارنت الصدحات حديث حاكم وريع على شرط البخاري إنه سجيها إن الذهاب الله وافقي من حديث ابن عباس عبد الله وحلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم وطعمة للمساكين لو واجب زكاة ظهرة للصائم قف كيسوا منابي لهاي كجنة ذي فينا من اللغو والرفث wixii laga yaabay inay ka dhaceen marka ahaa hadalkii xumaa iyo gafafki dadka masaakiinta ana waxay u tahay gurmad ducma waa raashin idan marka faa'iido waxay u leedahay shakhsiga faa'iidana waxay u leedahay mujtamaca labada arrimoodba arinta afraad waxa weey calaaman tajibu yaa lagu yeeshaa waxay ku waajibaysaa sida aynu soo sheegnay qofkiiba muslimka ah ee urka ka soo baxay ifka jooga ee Ramadaan iyo ciidana kulmiyay hadduu Ramadaan dhinta lagu male hadduu ciida dhashana lagu male labada waa inuu kulmiyaa qof haddii xaa soo guursatay habeenka ciidana Ramadaan ku soo gaadhin lagu male labada waa inuu kulmiyaa ila min almuslimiin abu nabigu qayd ka dhigay muslimiinta kamida ayaa asxaabigu leeyahay cid kasto muslima arinta shanaad ma lagu leeyahay ilmaha yar ee urjiifka ah ama ilmaha caloosha ku jira culimada qayb kamid ah ama asxaabta way tilmaameen sida Uthman ibn Affan radiyallahu anhu iyo Umar ibn Abdul Aziz
oo isaguna khaliifkii qiimaha badnaa iyo aimada qaarkoodba laakiin sida saxda ah waxa weeye ilmaha urjiifka inaan lagu lahayn qodobka lixaad laa yushtaratu fiiha nisaab nisaab iyada waxba looma shardiyo qofka sakaat fidriga lagu yeelanayaa xoolo sakagala inuu haystaa waxba muhiim ah xoolo sakagala inuu haystaa muhiim maahe dee qofkii xoogaa cunadiisa habeenka iyo ciidda ka soo hadha habeenka iyo maalinta ciidda wax ka soo hadhahayaba waa ku waajibaysa arrinta toddobaad wadaynu lmu'ajalu laa yamnacu zakaata alfitr haddii qofka lagu leeyay dayn weli wakhtigeedii aan la gaadhin sakada hor joogsan mayso maalan sanad kadib 6 bilood kadib bil kadib baas ayaa lagaa doonayaa dayn sakaat fidriga waad bixinaysaa u dhigi maysid daynka arrinta sideedaad maa huwa alqadru alwaajib qadarka waajibaya qadarka waajibayaa waa 2 kiiliya badh saac baa leh saac wuxuu ahaa wax sidan galaanka oo kale ah oo waqtigii nabiga saa wax loogu miisi jiray buu ahaa saaco oo dhiilkeennii qoriga ahaa ee geela aynu ku maali jirnay u eg ayaa saac la odhan jiray waxaana lagu qiyaasaa hadda 2 kiilo iyo 176 garaam waa wax la odhan karo 2 kiiliya xoogaa 2 kiiliya badh baynu ka dhignaa siyaadaa la socota qodobka 9aad ma la siyaadin karaa sakaat fidriga dii 2 galaan iyo badh lagugu yeesho 2 galaan iyo 200 garaam wax ku dhow lagugu yeesho 2 kiiliya 2200 garaam wax ku dhoweeyey ma laga dhigi karaa 2 kiiliya badh sidaynu inagu ka dhigno ها ولا قد كراه وإن نفاه بعض المالكية مالكية قاركود هبديدان علماء المالكية قايب كمدي وحاول دليلين لكردين كرا إلهي بأوحد فمن تطوع خيرا فهو خير له قفك سكدا كردية واجب كي لقوا يا شيء في دي صوم كقفك كردية خير بكرة صلاة سكدا حوالها مركو النبي وكجو دوما ينكي نافك وين شليس كياني wuxuu waanu ka aqbalay ajrina waad leedahay marka lama oranayo waa cibaado lama korin karo waa cibaado maaliya khayr buu qofkani kordhiyay sadaqa sunnah way u noqonaysa oo cibaado maxdiya ma aha waa cibaado maaliya arinta toddobaad noocyada raashinka laga bixinayo waxa laga bixiyaa wixii quuda laakiin wixii sharaaba faakihaysiya midhaa ee macnaha khudrada fruutka waxaan la yidhaha lagama bixinayo kuwa leanno kayd ma galaan raashinna ma aha marka waxyaabaha berigii hore asxaabtu ay bixin jireen waxaa ka mid ah ama xadiidkaba ku sheegan timirta heedda sabiibka caanaboodhaha baashan la yidhaahdo qamadida sareenka iyo hadhowrka iyo arabakhida ama masagada iyo oo isku nooca iyaguna marka shay kasta oo noqon kara raashin ayaa lagu bixinaya saa daraadeed eeg caano boori uu ku jira raashinka ilaa caanuhu cunana way yihiin cabidna way yihiin labadaba isku darsadeen aqid baana beriga hore la oran jiray waa caano la qalijiyaa qato waxa markaa aan lagu bixinaynin midhihii beerbiyoodka ka soo baxay cambayaashii liintii wixii nooca waxaan lagu bixinaynin bahashii la odhan jiray sonkorta oo sharaaba iyo saliidda oo iidaana kuwaas iyagu maha raashin qodobka 11aad hal yajuusu ikhraaju lqiima lacag ma lagu bixin karaa aimadu may banaynin intooda badani abu xaniifa quraa baneeyo yihi lacagtaa miskiinka u roon qowlka raajixahina waxa weeye in lagu bixiyo raashin maadaama uu nebiguba sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisii raashin ku bixin jiray lacagina jirtay lacagta muu bixinin markaa marka way jiraan culimo dhowrahoo casrigan ahoo le miskiinka waxa u fiican lacagtii oo qowlkii abi xaniife qaatay
imika inaga raashinkuna waa fiican raashinka lagu bixinaya arinta 12aad waqtiga sakadan la yiraahdo sakaat fidriga ugu haboon ee la bixinayo ama ay waajibaysaba culimadu waxay isla waafaqsan yihiin inay waajibayso marka Ramadaan laga afuro ee la dhameystira Ramadaan haday 29 iyo haday 30 waa habeenka ciida markaas ay faral noqoto marka habeenka ciida mar haday waajibtay wala bixin kara subaxa ciidana ka sii fadli badan oo nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu bixin jiray subaxa ciida qabla al-khuruj ila as-salah intaanu salaada tagin sida aayada aynu soo akhrinayna culimada qaarkood ay ku fasireen kunna nukhriju fi ahdi rasuulillahi yawm al-fitr sa'an min ta'amin ayaanu bixin jiray maalinka ciida bayda asxaabtu marka maalin kale hadii la yiraahdo waagu waqtigu bariyo way arinta 13aad hal yajuzu ta'jiilu hadhihi az-zakah fi ramadan miyay banaan tahay sakadan Ramadaan dhexdeeda in la sii qadimo culimadu haabay u badan yihiin laakiin qolo waxay leeyihiin Ramadaan dhexdeeda qolona waxay leeyihiin saddexda cisho ugu dambeeya ayaa ka sugmay asxaabtu inay qadimi jireen laba sabab bay leedahay in Ramadaan soo gasho iyo in ciid timaado labadii mid kamid ah hadii la helay waa in Ramadaan soo gasho ah wala sii qadimi karaa ayay leeyihiin waa la sii dadajin karaa fi Ramadaan kala du qofkii isaga labada sababide waxa weeyaan inuu Ramadaan soo gashay ka kalena waxa weeye inuu nisaabkii hayo wixii uu ku bixin lahaa labada sabab ku ah arinta 14aad liman tusrafu hadhihi az-zakah zakada yaa la siiyaa masjideedii qolo ee aayada quraanku ay sheegtay suuratu tawba ilaahay wuri inma sadaqatu lil fuqaraa والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل مسجد دا صار الله قيمين يسكات فدريا بس قلا قارة علماء waxa ay u badan yihiin in loo la siinayo fuqarada iyo masaakiinta sidii waqtigii nabiga baahay sallallahu alayhi wasallam oo aan ku daymooba iyo musaafir iyo waxba la daydayn maadaam du'matan للمساكين ونبي يقول وحي راشين وتهي مساكين تكل دوري فقير يا مسكين ما بدأ صوب على سين دونا لكن سيدات دي كلا وحبل الدوني مايو هذه يجي سنة ساسوها رسولك صلى الله عليه وسلم دقن كيس سكذني يدا هداينو أرجني دت كل سيني مصرف كذا هم إيش لقوا بحنايا يا ند سين كرينين أدوجو مزكي هدات قفكي بحنايا هدات dadkeeda aan siin karayn ila sakada xoolaaba way soo marnay kuwaana si kuwana haasin kuwii la siinay tan soo aragnay yaa la siinay waxaan la siinaynin dadkii loo diidi jiray sakada xoolaha oo koow ay ka yihiin aalu beedka rasuulka sallallahu alayhi wasallam nabiga xigtadiisa iyo qofkii aan muslimka ahayna gaalka ahaa iyo qofkii maal qabeenka ahaa xoolo isagu haystay da iska wanaagsan oo masaariiftiisa haystay iyo adigaaga bixinaya caruurtaadii iyo kuwa si dhaleen waalidkaagi iyo kuwii ku dhalay adu dadka dhashay iyo dadkay dhaleen waxa inta lagu daray xaaski oo iyadana aanad siinaynin sakada arinta 17aad hal yajuzu naqlu hadhihi zakah sakadan intoo gobol laga qaado gobol kale miyaa la geyn karaa taa waxay kala mid tahay sakadii xoolaha oo asalku waxa weeye sakaat fidriga in lagu bixiyo halkaad joogto laakiin halkaad joogto haddaan raashin looga baahnayn ama fuqaraba aanay jirin ama yar yihiin meelaha kale baahan baa la geyn karaa dadkeena dabadaha jooga waxay ku oranayaan raashin cid aanu siinoo qaadanaysaa ma jirto marka halkan ay u soo diri dadkan baahan raashinka u baahan arinta 18aad in ku soo gabagabaynaa waxa weeye sakadani hadii ay qofkii bixin lahaa dhaafto maalinkii ciida maxaa la yeelayaa dad baa ilaa waday miyay ka dhacaysaa mise uu soo qalaynaya shaygu hadduu faral yahay oo uu ku dhaafo waqtigiisii waa la qaleeyaa salaada soomka sakada
waa la qalaynayaa gashimo duugoobo daynta ilaahay kaama dhacayso sida ugu dhaqso badan baad markaad xusuusato ayuunbaad ku bixinaysa laakiin laba arrimood midna ma jiro oo arintaynu kusoo gabagabaynayno mar kale in sekadii oo aan lagugu lahayn aada soo amaahato macnaha waxba isku kalifi maysid inaad sekadii soo amaahato oo tidhaahdo wallaahi dadkii wada bixiye aniguna aan soo amaahdo amaahdaasi meesha iska jooji amaahdu waa musiibo amaahdu waxay ka mid tahay balaayooyinka la iska ilaaliyo shaydaanka la iska naaroo kale nebiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka magan galay min almaqrami waalma'ham dembiga iyo deynta markaa iska jeclaysana xoolaha dadka taasi waa mid oma soo amaahanaysa arrinta kale aynu baraarujin laha waxa weeye dad badan baa guryaheenna jooga intaad beelinaysa unbay kugu waajibaysa inta masruufkooda lagugu leeyay ayay kugu waajibaysa dad badanoo wax kula cuno xaafadda kula joogo ehelkii asxaabta le ama xaaska ehelkeeda hadday hayaanna way bixin haddii aanay hayna dhib ma jiro hadday dhacdo qofku inuu iska bixiyanaas ma noqonayso wax la deedifeeye sadaqay noqon dee ila faral kuguma ahayne mararka qaarkood baa laga yaabaa ehelka haddaad qaar ka reebto inay yidhaahdaan annaga waa nala taseeyey cidibadan nagama leh sekadii ilaahayna laga bixin waa ilan jahligu waa musiibo qofka jaahilka ahi wax yarna wuu weyneeyaa wax weynna wuu yareeyaa marka hadday 10 qof yihiin oo adigu 6 ka mas-uul tahay afarna aanad mas-uul ka ahayn dihaafka bariiska iskaba bixi soo 25 kiilo maaha 25 iska bixiya ma idinkana waan idinka bixiyay qalbigu ha wanaagsanaadee labaatanayada qodob baynu ku soo koobnay axkaamtii sakaat fidriga oo dhan sidaa daraaddeed su-aalaheedu waa inay iska soo ururaanoo qofkuna sekadan uu ilaaliyaa wakhtigeeda arrinta kale baraarujin lahaa waxa weeye ma jiro wax la yidhaahda iisii guddoon aan idhaahdo hebel u guddoon ma jirto qofku isagoo bixinaya qof maqanna doonaya inuu siiyo ayuu odhanayaa mid halkan jooga kaalay hebel u guddoon sooma dhacdo hebel kaalay u guddoon hebelkan guddoomaya miyuu soo diray ka loo guddoomayaa maya markaa ma ansaxayso kumay dhaafin bay ka dhigantay adiga sekadii kumay dhaafin adiga iyo kanaad tidhi guddoon isku meelun baad joogtaan isku cidun baad tihiin marka waxaa laga maarmaana qofkii inuu ama yimaado ama wakiil soo samaysto oo idhaahdo hebel iigu dhiib hebel baa iga wakiile sharciguna wuu aqbalaa wakaaladda waxaa la idhaahda marka kii wakiilka ahaa ama gabadhii ka wakiilka ahayd intay timaaddo way odhan kartaa sekadii sakaat fidrigii hebel ama heblaaye keen waa odhan karaa qofkaas laakiin haddaad halkaa u dhigto qofkii oo tidhaahdo hebel baa u guddoomay ama hebel baan la sugayaa waktigeedii faralkaa waa dhaafis waa salaadaad waktigeedii dhaafisay oo kale waxaa dhici kara dadka arrin kaleo aynu ku darayno wey inagoo ka duulayna su-aalaha inagu soo noqnoqda dadka debadda waxaa laga yaaba qof ninku inuu debadda ka shaqaysto xaaskiisa iyo ciyaalkiisuna halkan ay joogaan sidee buu u bixinayaa dee xaaskunbuu wakiilanayaa wuxuu leeyahay sekadaadii iyo sekadaydii iyo tii ciyaalkaba adaan heblaaye ku wakiisha ee inaga wada bixi afka bariiska ama gadbadda bariiska ah hana odhanin dee dumarka lama wakiisho iyo wakaaladiyo kama ansaxdaha odhan siday soomaalidu u yidhaahdaan waxay gowracaanba ma ansaxa dumarka sayladaba kala barh baa wixii adhi oo dhan dumarka inoo gowraca ha khaldamin dumarka ha tasaynin arrinkooda uu tiirsan yahay markaa arrimahaasina waa arrimo aynu ku sii dari lahayn oo qaladaad uu ka yimaado xagga sakaat fidriga marka xalku waxaynu ku soo ururinaynaa iska diyaar ah raashinkaaga dhigo timirtii bariiskii baastadii daqiiqdii caana boodhihii waxyaabaha aynu cunno ee wanaagsan waxba qamadiiyaha ku cararin arabakhi afdheerahe dadka lama caameeyo lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ilaahay baa wuxuu ihi samafalka aad doonaysaan gaari maysaan iyo wanaagga jeero wax ka bixisaan waxaad jeceshihiin marka adiga wixii min awsadi maa tudcimuuna ahliikum buu ilaahay ka warramay kafaara gudka marka bixinaysaan ka dhexe bixiya buu reeriina siisaan marka kaa wanaagsan ayaynu bixinaynaa xataa haddii aad
basmaatiga iyo bariiska Soomaha laba dabaqadood ama saddex nooc buu de bariisku ka yahay dirheermiga qaata mid waa gantafuuri mid kale waaba kii baa sarcaha iyo basmaatiga aad u fiicnaa ka fiican qaad laga yaabo gadbada in la siiyo $30 ama maaragtay mar walba cibaadadan wanaagsan ku xaragootaba adiga si qurxistay wixii faralka ka gudi lahaa mulaaxadaadka iyo arrimaha aynu tilmaamaynaana waa mashaakil iska jira marka waxaagii adigoo diyaarsaday qofka la ballan wakiilka ama qofka qaadaya subaxa ciidda ay ka leeyahay way hore u soo fadhiyaan dadkeena iyo ciid in loo dabaal dego wax la yiraahdo ku qufulan dadna wuxuu qoray adeer caawaysi adeer rabadaan inta aan imkaysi aan soo haleeli maaye iska tagna hadaba qaarna haleelaya jire qaarna haleelaya adigu waxaad ku dadaalaysaa maslaxadaada aniguna maslaxadayda waxa weeye faralkani waqtiga uu galo ugu fiican inaan ku siiyo subaxa ciida markay soo yaro mar qof soo diro sidaas maaragtay laga dhigayaa axkaamteedu caynkaas way markaynu intaa ku soo ururino way nagu filan tahay Allah inagu anfaco dambigeena iyo kii waalidkeena Allah dhaafo berita waxay u badan tahay inay noqoto Ramadaan laabta u sii daaya كل أرجع كحرين وشرعي وأرجع النصارى لكن قلادي آت كأباري فلكيين تها وحيلين بيشو قلبت وحيقرح ذا بكه الرئيسة لحية 8 دقيقة لحية 8 دقيقة قرح ذا كل جيده بيش بكه سيه الرئيسة إلا وحي وين موضعنا هذا لسي أركيان ساعة دنبنا وحيكدن بينيسا نص ساعة لبدا ضيحي مساو دحية 45 دقيقة Soomaa marka galabta 16 markay ka horeyso saa dambena waxay ka haraysaa nus saac marka wala arki karaaday leeyihiin waa ma suuragal ah in la arkabay leeyin galabta sida daraadeed waxaynu iclaaminayna maaha laakiin waa sida la filayo ugu badan weey sida la filayo hatta de lagu ma arki karo waa la arkayaa inay ka horeysay maxaa laga daydayda sharciguna de wuxuu nasaaray markay ka dambayso marka taasina kulay waynu iska wixii gabagaba ahkaamta ciida iyo wixii la xiriirayno 10 kan ku xiga ka dhigan doona insha Allah hada ma aquluhu astaghfirullah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh